maanta qof ayaa dhintay, beritana qof ayaa dhima doona. Laga yaabo qofkaas inaan aniga ahay, laga yaabo qofkaas in aad adiga tahay, laga yaabo muuqaalkan inuu noqdo muuqaalka ugu dambeeya aan soo dhigayo, laga yaabo inuu noqdo muuqaalkan muuqaalka ugu dambeeya ee aad daawatid, laga yaabo inuu dhinto qof familkayga ka mid ah, laga yaabo inuu dhinto qof adiga familkaaga ka mid ah. Nafsadaada ama noloshaada yaysan marna been kuu sheegin in aad caafimaad qabtid, waayo adduunyada marka imaanayno dadka waxay ogaadaan 9 bil ka hor intaanaan adduunyada aanan imaanin, laakiin markaan adduunyada aan ka tegayno 9 sakiin ka hor xitaa qof ogaanaya ma lahan. Maalinba maalinta ka dambeysa nolosheena way sii gaabnaanaysaa. Dadka waxay arkaan in sanad walba nolosheena ay sanad ku darsamayaan, balse xaqiiqda waxay tahay in sanad walba sanad nolosheena laga dhimaya. Marka qofka bini'aadanka waxaa loo baahan yahay waa inuu xasuusnaadaa waxa loo keenay adduunyada, waayo haddaad ogaatid adduunyada waxa lagu keenay ayaa waxay kuu fududaanaysaa in aad u shaqaysatid aakhiradaada. waayo Ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaa liyacrifuuni. Ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ma aanan abuurin jin iyo insi ilaa ay ani caabudaan. Sida Ilaahay u caabudaysaa? Ilaahay waxaa u caabudi kartaa waa inaa horta asiga aad garatid. Muuqaalkan waxaan idinka codsanayaa dhammaantiinaba inta dhegaysanaysaaba iyo inta daawanaysa in la wadaagaan walaalahooda. Inta aan ku wada kulmi doono muuqaalka lusidan ah waxaa idinka tagayaa sidaa iyo nabad.